إقاذة واسعة واي نمول بدتكيس ورداي ولا قاهدة هي الوقتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا channel كندا Somali Action. فضلا هذا كعصب تهاي please وحن كعد سننا no subscribe جري no share جري فيديو جن. ما أنتوا وحن كنا إن كهذا الله قرحي كذا إزجوز كأفجوي حمر dadkii badnaa ay ku dhamaadeen Allah uu naxariisto intii maartay dhimatay intii dhaawacan Allah dhabiibo oo maartay caafimaad siiyo waxaan ka hadlaynaa qaraxaas waxa ku jiray wiil Soomaaliyeed oo maartay ku dhaawacmay oo dadkii Turkiga loo qaadi lahaa qofkii labaad buu ku jiray soo asaga sheegayo aan tusi doono hadalkiisa inii soo bandhigi doona insha Allah taala wadankeena maanta waxa yaala waxay tahay sideen rabnaa inaan horumar ku gaarno sideen rabnaa inaan maaragtay nabadgelyo ku helo hadii anaga aan isfuquuqayno oo anaga maaragtay ismidabto koorayno wiilkaas Soomaaliyeed wuxuu ahaa qofkii labaad ee la qoray ee la rabay in la Turkiga loo qaado sidoo asaga sheegayo laakiin si wuxuu yiri isbitaalka markii la igu imaaday leeyma fiirinin leeyman ogaanin xaaladayda lugta ayuu ka go'ay wuxuu yiri waa la daba mariyay ilaa dhakhtarkii uu dhahay war wiilkan waa qoran yahay dadka waxa loo qaaday Turkiga uu kamid yahay ee hal la qaado dhakhtarkii dhag jalaq looma siinin wiilkaasna waxa looga tagay sida hadda aan ku sheegayba midabta koor ee looga tagay war gormeen midabta koor iska daynayna sidaad rabtaa in wadankeena nabadgelyo ku yeesho sideen rabnaa inaan horumar ku gaarno sideen rabnaa inaan caalamka la jaan qaadno hadiiba midabta koor uu imaanayo dhibaatadeeda ay leedahay والله إلهنا ونعرونيا هدي إنتاد مدبت كور ضدنا أد قاد أو ترى ولانديره ضدنا أد كتكتو إلهي سبحانه وتعالى وقوع عرونيا ويلك ولالك نذا كلنا وعمي ولي بوحوها دتك اللامي قديسي إنما كل صوم جنبي هاي اللي صوم عباري دتك اللامي اللي قديسي بوها حق مالتها حق جسوا مالني سيدو أسجع بالشيء جيو مش هسيو كلنا وعمي وانين وحوها ما دام وحوق جسنا حمالني دتك وحوق بني اللامي ذكود يسيبوها ورجرمت كديننا 4.5 بعد هذين 4.5 كي بعد هذنا 4 كي بعد هذنا لقطة دبات جلسين ووتكو يستكتين بالله عليكم اسكدايا وحيالها سوكله ووحا اوغو وين ان نغو دعايه ايشا اوغو وين او الله سبحانه وتعالى او نغو اسيبيه bay la mid tahay war ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri qoom ma halaago illa gacantooda isku halaagan ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إلهي سبحانه وتعالى قوم أنا ما هلاقو إلا قعنتو ذا إسكو هلاقان محاكين أيوه نكا ولال كان نضع موادين كالصوماليات أياد فغوضي oo tir midabta koortay qaarna aad ka haysatay qaarna ninkaas oo kale oo miskiin oo liita aad ka tagtay waa waliba waxa loo baahnaa ninka oo waxa weeyo la qaadan lahaa kamid yahay waayo qaar kale la qaaday laga yaabo dadkooda inay wax haystaan laakiin asaga iyo aabihiis iyo caruur u dhalo oo xoog maalatuha u soo xamaalayay sida hadda baad arki doontaan wuxuu leeyahay anigu waa dhibaataysanahay xamaalatan aha waxba ma haysanin waa ninka loo baahnaa in lambar 1 laga dhigo oo loo istaago oo maartay la muujiyo in wadankiisa uu asaga xaq ku leeyahay in la muujiyo halka waxaan ka dhalacaynaya anigana aniga ahayn macaaradnimo farmaajo iyo khayr ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada ummadda wuxuu inagu dhiibay mas'uuliyadda inaad dadka kala xaq soortaan ninka miskiinka ah haduu codkayga ina soo gaaro ninka miskiinka ah ee walaalkaanada ah dib ha loo eego oo dib ha loo jaleeco oo ninka hal la qaado oo caafimaadka hal la geeyo wallahi luqtibu go'an yahay in dhibaataysan wadu jeedaan asagii baa sheeganayo wallahi aabiis wuxuu ku leeyahay aniga afgooye ilaa iyo xamar uu ka iimaanayay ba wuxuu yiri waxaan gaari ku soo raacaan waaye markuu la yiri wiilkaada baa dhaawaca wuxuu yiri wadnihii baa istaagay wallahi shilin aan gaari ku soo raacan ma haysan buu yiri dad baa ii yara qaaraamo 3,000 oo shilin baa la isiiyay buu yiri 3,000 ma gaariga 20,000 baa lagu soo raacay buu yiri markaan imaaday waxaan arkay wiilkayga dhibaataysan oo u xamaalayay wiilka wuxuu aabihiis buu xamaalayay wuxuu hooyadiis buu xamaalayay caruurna uu lahaa xoog maalatada reerka dhan ay ku tashanayeen buu ahaa gaadiidka dhan ay reerka ku dhaqaaqayay asagu ahaa asagina waa ka dhaawacmay lug baana ka go'day qaraxa dirtiis bayna uga go'day marka waxayna leeyahay walaalahaygiyow meel kasta aad joogtaan hal iska daaya xaq darra ilaahay ma ogolo maxaan la degila anahay waa ismidabta koorkan ninkan waa walaalka Soomaaliyeed war adiga sida adiga tahay buu asagana ku yahay wallahi waxaad ka garanaysaa maalinka yawmal qiyaamo ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkiisa waa u sameeyeen ma kala qaadin adin waxa u kala qaaday allahi wax uumayay haduu wax kala qaadin adiga hadaad qaado maxay kula noqonaysaa waa dambi aad u weyn bal dhageysta walaalkeen wuxuu leeyahay
dhageysi wacan waa kamid tahay weli waxaan kamid tahay koowaad labaad saddexaad kamid ahay فهمتي أنا ما بينك وشيء لوات ستحات قف ستحات كمتها والي بسير ما عليه خوري والوقاضة لعاود ولا نداسي والوقاضة مكي ما ججس من إيه دي نعمرين وردين كانوا جبسية ولا البحان دريم إيراد دبعتها أن لكل ما اتقاذ واسي أبوي نمول بدت كيسو ورداي ولا قاهدارين هي الوقتيتها waa wax aad iyo aad looga naxo hadaladiisa ma dhageysan kartid qof bila aadan ah oo calool jilacsan wallahi inuu hadalkiisa dhageysan karin qeyro aad iyo aad baad u qeyroonaysaa markaad dhageysato markuu leeyahay aniga tolbaan waay wax qaadaan waay wax caafimaad isiyaan waay wallahi billahi tallahi waad ooynaysaa calooshana way ku xanuunaysaa wallahi billahi qof kasto oo bila aadan ah caloosha ayaa xanuunayso waa walaalkaaga wuu ooynayaa bishintii buu cunayaa wuxuu leeyahay waa lay midabta kooray anigu wadanka ana u dhashay baa lay cusuriyeeyay waxa uu leeyahay waa lay dhibaateeyay adiga daawanaya aniga daawanayaba haduu beer wax nax uu kugu yaalo wallahi billahi tallahi alazim wad ka xanuunsanaysa wallahi qaasatan anigu aad baan uga xanuunsaday maanta waxaan uga hadlayaa waxaas ka mid tahay walaalkaaga caawi nambarkiisa meesha ku yaala hadii la caawin waayo wallahi qof kasta oo muslim ah oo caalamka joogo $1 hadaa u dirto wax bay u taraysaa waa reetabareed dadkii u shaqeynayay buu ka curiyaamoobay aabihiisna waad aragtaan wuxuu leeyahay wiilkayga anigu ii shaqeynayay wiilkayga waxa looga tagay waa midabta koor waxa looga tagay wala fuquuqay wiilkayga wuxuu leeyahay dadkii meesha kula dhamaaday qaar Turkiga la geeyay laakiin si qaar Turkiga la geeyay waa qaar loo hadlay laakiin aniga wax wiilkayga u hadlu waay wax u dhaw waay fadlan caawi walaalkaaga dawladdanada barakaysan waxaan rabaa ninka walaalkanada inay caawiyaan ninka walaalkanada ay fuquuqeen wallahi wala weydiin doona dawlad maxay dawlad ku tahay waxay dawlad ku tahay inay dadkeeda shacabkeeda muwaadinkeeda inay u shaqeysay dawlad ku tahay wallahi inay soo dawlad ku ahayn kana qaad waxaas wax laga tagay fadlan waxaan ka codsanayaa caawi walaalkaaga dhibaataysan hadii ay dawlad caawin weyday adiga waad caawin kartaa $1 mise $0 oo isgaadgaado wax bay u taraysaa waxna way u qabanaysaa fadlan caawi walaalkaaga dhibaataysan waxa ina leeyahay waa walaalkii Shaakir insha Allah ta'ala waxaan xalaqadeena dambe fadlan caawi walaalkaaga dhibaataysan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh